الرحيم habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka caawa ee telefishinka HBN qodobada aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah hogaamiyaha xuutiyiinta oo ku dhawaaqay in ay diyaar u yihiin dagaallo hor leh oo ay la galaan Israa'iil isagoo sheegay in dhaqdhaqaaqiisu uu si buuxda isugu diyaariyay dagaaladaasi duqeyn dhimasho iyo dhaawac sababtay ayaa lagu soo warramayaa Israa'iil inay ka geysatay koonfurta waddanka Lubnaan dalkaasi Yemen ugu yaraan 30 qof ayaa lagu soo warramayaa in ay ku geeriyoodeen shil baabuur halkaasi ka dhacay wasiirka gaashaandhigga Israa'iil oo ku andacoonaya inay ka go'an tahay ciribtirka ururka Xamaas iyadoo Israa'iil ay sii wada xadgudubyada ka dhanka ah xabajoojintii la gaaray magaalada Minneapolis dalkaasi Mareykankana doorashadii ayaa lagu soo warramayaa in la tirinayo wareegga labaad iyadoo isu soo hareen musharax Soomaaliya iyo musharaxa hadda xilka haya oo markii saddexaad doonaya inuu noqdo duqa magaaladaasi warar kale oo ku saabsan weeraan 10 qof oo lagu dhaawacay baabuur dad lagu jiirsiyay waddanka Faransiiska waa idin soo gudbinayna dhammaan wararkan iyo qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warar ee soo kordhaya falaqayntii ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka wararka caawa soo gudbinta hogaamiyaha xuutiyiinta Cabdimalik al-Xuuti ayaa sheegay in dagaal dheeraada u dhex mari doono xuutiyiinta iyo Israa'iil arintaasna aan marnaba laga baaqsan karin wuxuuna tilmaamay xiisadda sii kordhaya gobolka ka jira ayaa keenaysa xaaladaas khudbad uu u jeedinayay xuutiyiinta ayaa uu ku sheegay inuu isu diyaarinayo wejiga labaad ee iska caabinta wuxuuna ku nuuxnuuxsaday in loo baahan yahay in la xoojiyo diyaargarowgeena iyo dagaalka mustaqbalka dhex mari doona annaga iyo Israa'iil waxaan aqoonsanahay buu yiri inay muhiim tahay in aan aad isu diyaarino oo wejiga labaad ee dagaalka isu diyaarino cadawgan kula jirno iyo kuwa garabka siinaya waa sidoo hadalku dhigay al-Xuuti ayaa sidoo kale digniin ku bixiyay nabadda iyo amniga waxay noqon doonaan mid aan la gaari doonin inta Israa'iil ay sii wado dagaalka iyo xoog weerarshada Falastiiniinta hogaamiyaha xuutiyiinta ayaa ku eedeynaya Israa'iil inay xadgudub ku sameysay xabajoojintii marinka Gaza hortaagan tahay in gargaar la gaarsiiyo dadka Falastiiniinta hal qof ayaa ku dhintay qof kalena waa ku dhaawacmay weeraro ay Israa'iil ku qaaday koonfurta Lubnaan sida laga soo xiganayo wasaaradda caafimaadka ee waddanka Lubnaan iyadoo Israa'iil ay dardar gelisay weerarada toddobaadyadii ugu dambeeyay ka dhanka ah waddanka Lubnaan waxaana ay sheegaysaa Israa'iil inay bartilmaameed ka dhigatay dad ka tirsan Xisbullah iyo agabkii ay Xisbullah lahayd marka laga gudbo in heshiis xabad joojina la saxiixay November 2024 laguna soo afjaray dagaalkii sanad ku dhawaa u dhaxeeyay Xisbullah iyo Israa'iil ayaa xukuumadda Israa'iil wali waxay wadaa in ay 5 goobood oo ku yaala koonfurta Lubnaan ay xoog ku gashay waxayna wadaa weeraro dhiig badan ku daatay oo ka dhana dadka ku nool koonfurta Lubnaan wasaaradda caafimaadka ee waddanka Lubnaan ayaa bayaan soo saartay ku sheegtay in cadawga Israa'iil uu weerar ku qaaday baabuur marayay tuulada Bog Rahal ku taala degmada Tyre taasoo horseeday dhimashada qof muwaadin ah qof kalena uu ku dhaawacmay wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Israel Katz ayaa sheegay in Israa'iil ay marnaba joojin doonin in ay dhamaystirto in hubka laga dhigo ururka Xamaas waxaana uu ku nuuxnuuxsaday in siyaasadda Israa'iil ee marinka Gaza ay caddahay isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri waxaa naga go'an in aan soo celin dhammaan meydadka Israa'iil looga hayo marinka Gaza welina waxaa socda shaqada ilaa iyo inta hawshaasi laga gaarayana ma aan joojin doona buu yiri aan dhamaystirno in hubka laga dhigo ururka Xamaas ee ku sugan marinka Gaza siyaasadda Israa'iil buu ku sheegay marinka Gaza inay caddahay wasaaradda gaashaandhigga ayaa ka shaqeynaysa sidii u burburin lahayd wadad dhulka hoostiisa ururka Xisbullah uu leeyahay waxaa la sheegayaa waxa ay isku dayaysaa inay ka taqalusto ururka Xisbullah oo ku sugan deegaanada ay gacanta ku hayso ee khadka huruudiga wasiirka arrimaha dibadda
ee wadanka Iran Abbas Araghchi ayaa sheegaya in abaalmarintii nabadda ee Nobel inay isu bedeshay aalad siyaasadeed kadib markii gabar ka tirsan mucaaradka Venezuela Maria Corina ay ku guuleysatay sanadkan abaalmarintii nabadda waxayna sheegtay inay taageersan tahay Israa'iil. Taleefan ayay waxay kula hadashay ra'iisul wasaaraha wadanka Israa'iil Benjamin Netanyahu waxayna u sheegtay in Israa'iil ay taageersan tahay. Cambaareynta Iran ay u soo jeedinaysa gabadhan ayaa waxaa lagu sheegay inay taageerayso xukuumad argagixisa waxayna u sheegtay ra'iisul wasaaraha Israa'iil in ay taageersan tahay Israa'iil kana soo horjeedo ururada argagixisada ah oo Hamas iyo Hezbollah ay ku sheegtay. Araghchi ayaa arrintaas ku sheegay in ay taageerayso dadka xasuuqa iyo dambiyada dagaalgalaya gabadhaasi oo nidaamkii cilmiga ahaa u bedeshay mid siyaasadeed. wararka caalamkana waxaa ka mid ah 30 qof ayaa ku dhintay qaar kalena waa ku dhaawacmeen shil baabuur oo ka dhacay deegaanka la yiraahdo gobolka Abiyan ee koonfurta dalka Yemen wadada la yiraahdo Ar-Raghub kadib markii baabuur basa oo baabuur kale ku dhacay waxaana horseeday in baabuurkaasi baska uu dab qabsado. Hay'ad ayaa waxay ku waramaysaa baskaasi in uu markiisa hore ka soo ambabaxay magaalada Jeddah ee dalka Saudi Arabia wuxuuna waday 42 qof oo rakaab ah oo ku socday wadanka Yemen. sida laga soo xiganay yeelahaasi 5 qof ayaa maareeyay inay dirshadaha jabiyaan oo ay baska ka baxaan. Fasahaatee dadka intiisa kale baski ayay ku gubteen maadaama ay furi waayeen dirshadaha. sida laga soo xiganayo wasaaradda warfaafinta darawalka waxa uu ahaa Shuhayb al-Hijazi ninka baska waday xilliga shilka u dhacayo tiro kale oo dadana waa ku dhaawacmeen waxaana la geeyay isbitaalka Al-Jamhuuriya ee magaalada Cadan halkaas oo lagu daaweynayo dadkii dhaawac ahaa. nin 35 jir ah ayaa baabuurkiisa ku dhuftay dad wadooyinka marayay iyo dad bishkuleetiye watay jasiirad la yiraahdo Oleron oo ku taala wadanka Faransiiska. 10 qof ayaa dhaawacmay oo ku jiraan 4 qof oo xaaladooda ay khatar tahay sida xeerlayaha dawladda uu sheegayo. Oleron dadka degan ayaa ku sheegaya in ninkaasi si ola kaca oo dadkii wadooyinka marayay iyo bishkuleetiyadii u burburiyay. waxaana la sheegayaa booliisku inay ninkaasi gacanta ku dhigeen baaritaan ku sameynayaan sababta ku haliftay isku dayga dilka iyo waxyaabaha kale ee ku gadaaman arrintaasi. ilaha daba socda kiiskan ayaa sheegaya in ninka si ola kaca oo dadka u dhibaateeyay dhowr kiiloomitirna ay ku daadsan yihiin dadkii uu waxyeelay. natiijadii ugu dambeysay ee tartanka doorashada gobolka Minneapolis ee wadanka Mareykanka ayaana la filaynin ilaa iyo fiidnimada waqtiga maxalliga ah iyadoo ninka hadda duqa magaalada ka ah gobolkaasi Jacob Frey oo codbixinta wareega koowaad ku horeeyo waxaana uu codbixiyay 41.76 halka ninka tartanka kula jira oo asna ah xildhibaan ka tirsan dowladda maxalliga Umar Fatah ayaa asna waxa uu haystaa wareega koowaad 31.72 halka doorashada qaybaheeda hartay la filayo Fatah in uu ku guuleysto wareegyada labaad iyo saddexaad. waxaa sidoo kale jira baa leeyahay musharaxiin kale oo ka mid yahay Dwayne Davis, Jas Hampton oo midkiiba uu haysto 13.73 boqolkiiba iyo 10.39 boqolkiiba waxaana la filayaa in ay ka haraan
wareegayada xiga ee doorashada. waa tahay maxamed aad baad u mahadsan tahay daawadayaashana ay mahadsan yihiin mar kale ayaan soo dhaweynaynaa daawadayaal waxaan u gudbaynaa falaqaynta wararka iyo wixii warah ee soo kordha ha yeeshee aynu ku hakana qadar xayeysiina xarunta barashada diinta daawadayaal weli waxaad la socotaan barnaamijkii wararka caawa maxamed aan ku bilowno hadalkan ka soo yeeray cabdimaalig alxuuti xabajoojinta qaza imika israa'iil xadgudub ha samaysa laakiin xabajoojin baa jirta oo duqeymihii waalnaa imika israa'iil ma wado horeyna xuuti waxay u sheegi jireen in ay ku xirayaan dagaalka inay joojiyaan israa'iil dagaalka inay joojiso hadalkiisan ma xaalad cusubba mise wuxuu ka turjumaya hadalkii halkan aanu ka sii daynay ee netanyahu uu ugu hanjabayay xisbullah iyo xuutiyiinta su-aashaas waa su-aal fiican oo xasaasi ah. xuutiyiintu waxay maldahayaan israa'iil inta ay u diidan tahay in gargaar la geeyo marinka khaza welina ay u heelan tahay inay xabajoojinta jebiso inay iyagu dhankooda diyaar garoobayaan dagaal inay israa'iil la galaana ay tahay waxaan laga baaqsan karayn. xuutiyiinta hore ayaa loo ogaa balan kasta ay qaadaan inay meesha ugu dambeysa la gaarayaan. hadalkaas uu jeediyey hogaamiyaha xuutiyiinta cabdimaalik alxuuti ayaa muujinaya in israa'iil ay weli ogsoon tahay xadgudubyada ay geysanaysa in cawaaqib uu ka dhalanayo. hore waxaa israa'iil u taageerayay maraykanka. xuutiyiinta waad og tahay in xabad joojin ay maraykanka la galeen, xabad joojintiina inay mar dambe ka baxeen maraykanka ilaa iyo hadda arrintaasi kama hadlin. waxaana muuqata in israa'iil ay u gooni noqotay weeraro joogta haddana waxa uu ku hanjabayaa inuu dagaalku weli dhammaanin inta ay sii wado xadgudubyada ka dhanka ah dadka falastiiniyiinta, wuxuuna sidoo kale sarbeebayaa dowlad falastiiniyiintu leeyihiin ilaa iyo inta laga gaarayo in dagaalkaasi uu socon doono. waa gartay waa yahay inta aanu kaga gudubno warkaasi dhanka xuutiga markaan bal aynu eegno xagga wararka la xiriira marayka Gaza maxay qobradu ka tiri arrimahan ugu dambeeya gaar ahaan xadgudubyada Israa'iil ee sameynaysa xabad joojinta barnaamijka ka horreeya waxaynu sii daynay Netanyahu oo leh ma sii daynayno oo man ogolaan doono inay ka baxaan godka ay ku jiraan dagaalamayaal Falastiiniyiin ah oo ilaa 200 lagu qiyaasayo. haddana waxaynu maqlaynaa wasiirka shaandhiga oo dhaaranaya maxaa arrimaha laga yiri. wejiga koowaad ee xabad joojinta ayaa dhammaad ku dhow, hase ahaatee su-aalo badan ayaa harsan wejiyada kale sida loogu gudbi doono. wejiga koowaad waxa uu ku dhow yahay gabagabo, hase ahaatee su-aalaha harsan ayaa lagu sheegay in la meel marinayo wejiyada xiga, sida uu sheegayo nin arrimaha bariga dhexe iyo siyaasadda gobolka bariga dhexe khabiir ku ah oo lafagura oo la yiraahdo Lushanyo Zakara. Xamaas ayaa hore u sheegtay in ay burburka hoostiisa weli ka raadinayso dad askartii Israa'iil iyo dadkii maxaabiista ahaa, hawshaasna ay dhib badan tahay sida Zakariya uu xusay. laakiin ma ogsooni buu yiri in Xamaas aynan hawshaasi wadaynin sababo siyaasadeed awoodeedii in kale, laakiin awood la-aan ayaa jirta iyo qalab culus oo lagu fago dadka burburka hoostiisa ku jira. lafagurahan ayaa intaas wuxuu ku darayaa wejiga labaad ayaa noqon doona mid aad u dhib badan oo ay ku jirto arrin xasaasi ah oo ah hubka dhigista ururka Xamaas iyo in la isticmaalo ciidamada xasilooninta caalamiga ah oo lagu xaqiiqsanayo xabad joojinta inay sii shaqayso. waxay ila tahay buu yiri khabiirkaasi in aan muujinayo diilo marka la fiiriyo wejiga koowaad in uu gabagaba ku dhow yahay, laakiin in meydadka dhammaan la soo celiyo ayaa waxay tahay buu leeyahay arrinta xusada mudan. mana ogi buu leeyahay inkasta oo aniga aan diilo weyn qabo wejiga labaad sida loogu dhaqaaqi doono iyo cidda lahaan doonta ama qaraar ma ka imaan doonaa hawshan lagu qabto golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyadoo aan heshiis cad la gaarin. ciidanka caalamiga waxa uu noqonayo sida uu shaqeynayo weli waxaad moodaa arrintaasi inay kala cadeen. waa gartay waa yahay
dhinaca kale aynu ka eegna markan gaar ahaan wararka la xiriira xagga Lubnaan Israa'iil xadgudubaya sii wada Lubnaanna waxaa ka muuqata Xisbullah inay diiday inay hub ka dhigto iyadoo calaamadan muujinaysa laakiin dhinaca kale warar waxaa soo baxaya warbaahinta Israa'iil ay sheegayso Netanyahu inuu wada la tashiyo suurtagal ay tahay duulaan cusub lagu qaado wadanka Lubnaan gaar ahaan Xisbullah maxay arintani dhalin kartaa hogaamiyaha ururka Xisbullah Sheikh Naim si cad ayuu u sheegay in aynan hubka dhigi doonin maalintii Karbala wixii ka dhacay dagaalkii wuxuu xusay sayidina Hussein Ali ibn Abu Talib dagaalkii lagu dilay uu yahay marnaba in aanan hubna dhigi doonin dagaalkana ninka ugu dambeeya inay ku dagaalami doonaan Israa'iil khabiirada madaxa badhan oo dhan waxay leeyihiin siyaasad ahaan ururka Xisbullah in la qasbo aad ayay u dhib badan tahay waxaa u roon baa leeyahay inay xabad joojinta yeesho ururka Xisbullah waa ka soo qabtay dhibaatooyinkii gaaray iyo weeraradii lagu qaaday dagaalka intuu socday oo hogaamiyaashooda lagu dilay saraakiil badan oo looga dhaawacay hadda waxaa muuqata xukuumaddii waddanka Lubnaan laftirkeeda inay cabasho gudbinayso ay leedahay waxaan looma dul qaadan karo halkii la rabay in xukuumadda ay hub ka dhigto ururka Xisbullah hadda waxay garwaaqsatay in gardarrada ay Israa'iil wado ay u baahan tahay in la xakameeyo waxaa ballan qaaday damaanadna qaaday xabad joojinta inay Israa'iil aaminayso wadamada Faransiiska iyo Mareykanka labadooda waxaa muuqata inay ka aamusan yihiin laakiin haddii uu Netanyahu dagaalka uu ku hanjabayo uu qaado waxaa cad in lagu noqonayo dagaal la isku riiqdo umana muuqato Xisbullah inay qoryaha dhigayaan ama isdhiibayaan waa hagaag tahay maxamed aad baad u mahadsan tahay daawadayaashana way mahadsan yihiin inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa caawa barnaamijka daawada si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan kasoo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waxaynu barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadgelyo ku soo dhawow qaari online qurba joogta dadkaygu barasho